السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسنا قيارتي نقد داونيسا تلفزيون كعالميga Somsat xafiiskiisa magaalada Muqdisho oo aan toddobaad waliba idin kaga soo gudbina barnaamijka codka dhalinyarada ee ku soo dhawaada. barnaamijka toddobaadkan oo ay taariikhdu ku beegan tahay 2 March 2013 waxay noogu marti ah oo aan diiradda horta ku saari doonaa barnaamijka Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika xaaladooda iyo dhibaatada Syria. barnaamijku waxa igala qayb qaadanaya Cabdinaasir Sheekh Cabdulkariim oo garabkayga bidix fadhiyo oo loo yaqaan Naarmagale ahna saxafi Soomaaliyeed oo muddo ku noolaa wadanka Koonfur Afrika. sidoo kale barnaamijku waxa igala qayb qaadanaya Maxamed Amiin Umar Cali oo loo yaqaan Laadiqiya isagana garabkayga midig ayuu fadhiyaa isagana waxa uu muddo joogay dalka Syria oo uu wax ka baranayay. anigoo Sharmaaki Abuukar Amiin oo aan idila socodsiin doonaa ku soo dhawaada barnaamijka codka dhalinyarada. محمد أمين كسر التلفزيون كصومالي صار حرنتي في مقدشو. أدي هذا ما صنتهاي مثلا وأنا كفر حسن أمات إن حرنتي تي في اللي هو عزوم أنا جو متقنا الربعين الواحد فربنا وافتيمية أما متقنا إشي واحد لا قربها هي متقنا دبعتها كلا كل من شعب الصوماليات يولي بفائدون لا دقف إنه ودك سو كتجو أو متقنا سيو اللي بح النقطة marka waxaan leeyahay baha TV-ga oo adigu horeyso iyo farsamayaqaanada iyo maamulayaasha kulli waxaan leeyahay hambalyo waana imtixaan sheegay in salaamaya waan ku dhawaad barnaamijka وما صنتها sidoo kale waxa gacanteeda bidix fadhiya Cabdinaasir dhankeeda Cabdinaasir Sheekh Cabdikariim oo loo yaqaan Naarmagale muddo ku noolaa dalka Koonfur Afrika ahna saxafi Soomaali Cabdinaasir ku soo dhawaad studio-ha telefishinka Soomaali ee magaalada Muqdisho. dad ma santahay runtii وأمور عن ليه هو وفرحات جارة وأنا كأجمع علني فرصة أن عدنا سيسين التليارات الصوماليات قرب جوكتا وحنس ليه هي إن بدنا الصومالي وكنا الكونفور أفريقيا كسكو إن بدنا الصومالي وكنا القربها سؤال بيسكوي دين دون عن قربها وحي كلا كل من وارنتي وحنوار كائن فرصة قال مسمر تشر مارك مرة بدأ ديوا كأجمع علني أدقي برنامج توصل عليها شباب وتهيأ قياري وحن وجود قلنا برنامج كني عود كذا يرد التلفزيون كصومسات أو تضبط كيف الله ومعلومات الدعوتان. سؤال شو جوهر سوحن ويدين دونا عبدناصر الشيخ عبدالكريم ونارمغالي أو صحفي سومالية مدة دور إلى 20 سنة أكون ولا دالك كونفور أفريقيا. إن عبدناصر سؤال شو جوهر سأنكو ويدين وحين خلنا سيدا لو تجا دالك كونفور أفريقيا أو سومالي دو كتجان. شرماركو أرت دالك كونفور أفريقيا ودال وينو كترسن قارة أفريقيا احنا ماشي وجود ميسا قارة أفريقيا ودل عن رنتي إسلام هاي دتك الصومالية دو كنول مركي أيوان ببحيين أقول مين الحين وأنا تجن هذا الضد كبدن تضباطن كونوا صومالية وقحوتي يكونوا دلكو وحلامرة دل البدن دلك الصومالية أو هم قالدي مقدشة عاصمة مركو قفك إماده هو عم ببحوا إياه دلك كونفور أفريقيا وحاو سيمرا دلك كينيا تنزانيا موزمبيق dadka qaarkood waxay u leexdaan dhanka iyo Zambia dhanka kale way sii maraan Malawi marka dalal badan baa ka sokeeyo oo la sii maraa dhibaatooyin aad u culusna dadka waa ay kala kulmaan dalalkaasi ay tagayaan taa marka laga soo tagane dadka Soomaaliyeed waxay u noqonaysaa jaani ama safar ay ku galayaan 10 ku qaadanayaan dalkaadii hooyo ka amba bax daladan garanayn dhibaatooyin aad u culusna dadka waa ay kala kulmaan أخيراً هذا تضواتهم كانوا صومالية قحوتية هي سنة كان 13 كجوجو سود أفريقيا. وما صنتها هي دنك سوريا محمد مدة واحد جوجتي دالك سوريا سيدا لو قلت جاوي صومالي دو قلت جان أوجهورين. dadka Soomaaliyeed ee jooga dalka Syria horta markii la kala qaado waxay isugu jiraan dad caa'ilada iyo dad ardaya iyo dad mutaqaana safar kale raba inay si aadaan xagga Yurub su'aashaada sidee lagu tagaa Syria markii horeba markii dagaalkii sokeeyay oo ka dhacay dalka Soomaaliya Syria waxay ahayd wadamada qaar dawladii hore ee Soomaaliyeed aad xiriirka dhow u lahaayeen sidaas daraadeed waxaa lagu tagi jiray baasaboorka cagaaran xilligaas free airport dawladii dhexe ayuu ahaa airportka uu qofka tagaya fiise mataqaana ay sheego ama garoonka qaadan jiray saas uu ku tagi jiray laakiin muddo kadib markii dhibka Soomaalida uu ku batay oo in la haajir ee farabadatay dadka Soomaaliyeed aad u yaaceen waxa adkaaday in la galo wadankii waxa soo baxay rag fara badan oo Soomaaliyeed oo muqallasiin ah oo isla markaasna ay laftirkooda faa'iido doona iyo dad kale oo Carabeed oo immigration-ka qayb weyn ka haysto si mataqaana shacabka Soomaaliyeed visa waxa la ama barqiya ayaa loo yaqaanaa Carabeedka si loo soo saaro barqiyadaas oo heer fara badan ay soo martay tafaasiisheeda hadda inta kuma soo koobi karno
ilaa heerka u dambeeyso sanadihii ugu dambeeyay $7,000 qofka oo Syria ku tagay waxa kale oo jirto jihooyin kale oo Syria laga galo مثلا dadka carabaha kale sida Sacuudiga ku noolaa ama Lebanon ku noolaa oo ayaga laftirkooda ayagoo sharci haystaan mataqaana ay sheeg soo geli jireen bariga ama xuduudda ka soo geli jireen bay bas ayuu ku soo galaayo oo ayaga laftirkooda fiiso oo striker meesha ka qaadan jireen iyo waxa kale oo jiray dad fara badan oo Suudaan ku nool oo fiiso Suudaanis haystaan si ay mataqaana meeshaas u soo galaan si suyaax ama dalxiis oo kale u soo galayaan ayagoo isla markaasna rabo inay dalka Syria ku noolaadaan waa tahay dhanka Cabdinaasir iyo Koonfur Afrika Cabdinaasir qofka markuu socdaal uu ka bilaabo Muqdisho ama Soomaaliya goboladeedii oo uu gaaro Koonfur Afrika dadkii ay ku degaan sharmarku horta dalka Koonfur Afrika waxa uu ka kooban yahay 9 gobol waxaana ku nool 13 qabiil oo Koonfur Afrikaan waa dal ka xuroobay gumaysiga laga tirada badnaa ee cadaanka muddo dheerna soo xukumayay waa dal isku furfurmay dimuqraadiyadda Afrika qayb aad u wanaagsan runtii ka qaatay waa dal markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda ay noqotay mid ay ka shaqeyso waa dad u bisil la noolaanshaha dadka kalenta ee ajnabiga marka laga hadlayo dadka Soomaaliyeed ku degaan markaan ka hadalno sanadihii ay xurriyadda qaatay dadka Soomaaliyeed ahaayeen dad mangalyo doona oo neef qowracangeeda kama waabtay meel walba galayeen Koonfur Afrikaanka aad bay runtii u soo dhaweyn jireen ma jirin cid lagu dago oo dadka Soomaaliyeed u bartilmaameedsan ay ku dagaan balse waxa jirtay meelaha dadka ay ku cibaadeysan sida kaniisadaha iyo masaajidada ay dadka Soomaaliyeed tagi jireen halkaas oo maciin bidi jireen oo ay marka qaarkood hay'adaha UNHCR iyo qaybaha xuquuqda bini'aadamka u dooda ay ugu tagi jireen goobahooda oo ay siin jireen wax markaasi ay nolol maalmeedka qofka uu ama busta uu hubsado ama waxa uu cuno laakiin maanta way ka duwan tahay sheekadii 1994 dadka Soomaaliyeed waa dad hanti muuqda kula dalka waa dad laga yaqaan dalka waa dad marka qofka cusub uu yimaado dadka Koonfur Afrika laga yaqaan dadka Soomaalida qofka cusub markuu yimaado waxa uu ku dagaa ehelka markaas ama asxaab oo si gaar ah ama deegaan ay wadaagaan oo ay ku dagaa markaas la caawiyaa loona sahlaa meelihii shaqada accesski uu ku helay wata qofkan asxaab ku leeyahay halkaas marka sidoo ku noolaanaya Yuusuf la digaya way adag tahay qofka in uu ku noolaado Koonfur Afrika balse waa dal horumaray markaan ku leeyahay magaalada Johannesburg oo deganaa muddo qofka Soomaaliga oo aan luqad aqoonin dalkana aqoonin dad degan aan garanayn waa afka qalaad waxa lagu yiraahdaa dalka Mareykanka waa dal wax walba waa dal opportunity land balina afka South Africa waa dalkii fursadda dalka South Africa waxa la yiraahdaa the land of possible wax walba suurtagal bay ka noqotaa qof dalkii wax walba ay suurtagal ka suurtagal kareen qof ummi ah magaciisa aan qori karin baa dalka Koonfur Afrika imanayo ehel aan ku lahayn muddo yar gudaheedna waxa uu noqonayaa shakhsi isanfaco shakhsi wax qabsado waa runtii wadan friendly ah dadka ay yihiin dad saaxiibo ah lana noolaan kara Koonfur Afrikaan waa tahay Maxamed Amiin dhanka iyo Syria qofka markuu Muqdisho ka baxo ama ha wada muqallas ama si kale ha ku tago ama ha ka soo galo Sacuudi iyo Suudaan ama Lebanon qofka markuu gaaro wadanka Syria yuu ku degaa hadii ehel meesha uusan u joogin qofka markuu tago yuu ku degaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa arkaysaa qofka Soomaaliyeed oo mataqaana haajirayo inta badan waa qof iska socdo oo mataqaana shay ama target toos aan lahayn wuxuu ku leeyahay midna waa la taariibay waa loo taariibay waxaan aadaa Syria visa iyo gadanaya waxa laga yaabaa in shakhsiyad badan oo iska aqoonin waxa laga yaabaa in mataqaana ay sheeg calaaqaadkiisa meesha ku fiicnaan laakiin inta badan ma dhacdo qof oo socdo oo mataqaana ay sheeg target la mataqaana ay sheeg ciwaan aan haysan hadda waayihii dama Soomaalidu way ilbaxday xataa wadankii u safrayeen xataa luqadihii badan ay bartaan marka dad ay raadiyaan ama ehel ama qaraabo ama qabiil ayaa la raadiyaa way dhacdaa mararka qaar qof aan mataqaana cidna aan ka aqoonin jaalidu imaanaya markuu jaalidi yimaado meesha waxa ka jiro kalaan waxaan dhihi karaa meesha ugu weyn oo qabiilka ugu barto waa qurbaha marka qofku imaanaya jaalidu imaanaya wuxuu leeyahay qof cusub ayaan ahay okay yaa ku dhawaad leeyahay qabiilkaada مثل نياتا Soomaali cid ku sheeganaya dabeetan qofka ugu dhow ama Soomaali qabiil ahaan magacaan cid ugu dhow ayaa soo dhaweyso oo mataqaana gurigiisa geyso ma ahay qof kale oo iska yimid jiro oo aan mataqaana xilligaas ama aanan haysanin qof kale ama contact ka aanaysan hotel u degaya oo hotel u kireysanaya hadii jeebkiisa oo ka garto ama safaaradu ku degaya wax noocaas ayaa mataqaana sheeg qofka Soomaali oo marka cusub yahay oo mataqaana isku dabala noloshiisa waa tahay marka Muqdisho joogno ama Soomaaliya baan iraahdee waxa la maqlaa Koonfur Afrika baa hebel lagu dilay dad Soomaaliya Koonfur Afrika lagu dhibaateeyay
su-aashaasi waa su-aal runtii u baahan in si gaara loo eego dadkuna waa ay iska weydiinayaan sababta keeni karta in qof Soomaaliya oo ajnabi dal ajnabi ku ah in soo noqnoqoto hadaladiisa ah waa la dilay taas waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed TV-ga daawanayna u cadeeya iyo adigaba dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen dad intooda badan ka soo qayb qaadan dadka qurbaha u diday dawladda dhexe ee Soomaaliya yar been u badan dadka tagay dalka Koonfur Afrika waxa ay inta badan tukaamo ay ka ganacsadaan dadka Soomaaliyeed waxa ay degaan meelaha dadka muruqmaalkeena awoodin bilicda magaalada inay ku noolaadaan ay degaan Koonfur Afrikaanka meeshaasi kuma taala booliis xarun booliiseed malaha takhtar caafimaadka markaas wax u qaban kara qofka waxa ay subiyaan ganacsada tukaamay ay ka furan marka miisaal baan u soo qaadaya ninka ka furtay deegaan Soomaalidu leedahay kana baxsan magaalooyinka oo Chinese oo 22 jir ah ee ka furto tukaan su'aal bal iska weydiinaya ah ninkan Chinese ka 22 jirka ee imaaday meeshan muxuu yahay qofka Soomaaliga oo qof ajnabi ah waa qof aan ku luqad ahayn dadka Koonfur Afrikaanka waa dad aan ku muuqaal ahayn marka ay tagaan marka meesha waxay subinayaan inay tukaan furtaan tukaankaasi oo suurto geliya markaasba in uu soo jiito muuqaalkii dadka Koonfur Afrikaanka oo laga adeegto waxa masayraya marka saddex nin baa masayrayso waxa masayraya ninka ganacsadaha ee tuulada macalinka ka ahaa ee xoolaha keeni jiray ee hantilaha waxa xanaaqaya ugaaskii meesha xukumay oo asaga la soo xiran la wargelin oo la dhihin waxaan furnayaa tukaan waxa xanaaqayo taliyii ciidanka magaaladaas ama goobtaasi oo asaga lagu wargelin oo dhihin amniga iyaga wax ka ogaaw marka wuxuu qofka Soomaaliga soo binaa marka wax ka baxsan dhaqankii maamaha runtii suuq gashay baa jirto oo madaxweynihii hore Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed uu yiri 20 jir $20,000 haysto ayaa qarribay dalka waana maamaha Soomaaliya waxay oranaysaa 20 jir intuu geed ka boodo taladiisa ka booda ninka dhalinyarada Soomaaliga ee awood u yeeshay inuu tukaan ka furto meeshaas wuxuu soo binayaa in uu xiriir la gaar la subiyo ugaaska gabadhiisa ugaaska gabadhiisa markuu xiriir gaar la subiyo muddo gaaban gudaheedna uu gabadhii ugaaska raacdeeyo ugaaskii oo xanaaqsan guriga ninka uu ka kareystay oo uu relationship ama waxa afka Soomaaliga lagu yiraahdo xiriir gaar la subiyay gabadhii guriga iska lahayd ninka qabay ninkii guriga iska lahaa xanaaqsan ugaaskii oo xanaaqsan ayaa waxa tagayaan xarunta police stationka ay dacwo ka furanayaan oranayaan ninkaas kuriga ama ninkaas ajnabiga ayaa nagu subiyay wax ka baxsan xad gurigayga iga soo raacday ugaaskii gabadhiisa xiriir gaar la subistay taliyii markuu imaado laaluush bay siinayaan laaluushka marka ay siiyaan taliyii waxa uu suurtagelinayaa inuu ninkaas wax ka qaadi karin wadee afar cuna xisho waxa kale oo dhacaysa marka in qofkii Soomaaliga ahaa ee deegaankaas si dhibaatada intaas la gaarsiiyay inuu ogaaday in dhibaato ay meesha taalo waa u gadaya tukaankii waxa uu ka gadaya Maxamed Amiin oo aan aqoonin meesha iyo goobtii markuu uu gado uu tagaya Maxamed Amiin wuxuu noqonayaa qofka victimka dhibaatada soo gaarto waxa dhacaysa markii ugaaskii iyo taliyihii ciidanka iyo ninkii guriga iska lahaa inta heshiiyaan taliyihina loo diiday laaluushkiisi in uu amro in la dilo dadka Soomaaliyeed waxa dhacda marka qaarkood in ninka Soomaaliga ee Maxamed Amiin iyo aniga aan tukaamo furano adiguna aadan ahayn shakhsiga tuuladaas tukaanka ku lahaa inaad shaqaale aniga ii ahayd shaqaalaha aniga aad ii ahayd kadibna aad ogaatay inay fursad taala meesha ah in tukaanka laga furi karo ana adiga aad ii sheegin ama Maxamed Amiin aad u sheegin baa tukaan furanaysa marka hore waxaad noogu sheekanaysaa inaad baxayso ka tagaysa tuulada Maxamed Amiin iyo waxaan ku shireenaa ku heshiinana in maadaama adiga sharmaarke aad tukaan meesha ka furatay inaanu ku dilo association marka qayb ka qaadanaya aniga sharmaarke aniga ninka la raxamin waxaan soo binaynaa Soomaaliga marka aan dhibaatada qaar ka gaarsiino way adag tahay marka in la qabto shakhsiga wax gaarsiiyo dadka Soomaalida dacwada inay sii fogaato maxaa dacwada waxa soo geliya aniga iyo Maxamed Amiin baa soo gelina marka si taas u sii noqon laaluush baan bixinaa way istaagtaa waxaan hadalkaaga u fahmay ganacsatada Soomaalida halkaasi ku sugan ciidanka booliiska iyo dadka deegaanka way ka wada dambeeyeen dilka Soomaaliyeed intaba runtii in Koonfur Afrikaan kaliya la eedeema dadka Soomaaliyeed weyn bay ku leeyihiin dhibaatooyinka Koonfur Afrikaankana waa ay ku leeyihiin waa mahadsan tahay dhanka Syria Maxamed sanadii 2011 aynu soo dhaafnay madaxweynaha hadda dalka talada haya ee Bashar al-Assad dagaal baa ka bilowday Syria Soomaalida halkaas ku sugan dhibaatooyinka soo gaaray maxaa kamid ah noo sheegi kartaa marka laga hadlayo thawraad iyo lagu magacdaaro Rabiicul Arabi meeshaas waxa ka dhacay mudaharaadkii fara badan ay ka dhacay oo dhiig oo ku daatay ka bacdi Rabiic ayaa wuxuu isku bedelay khariif ama wuxuu isku bedelay gu'ayad wuxuu isku bedelay meel oo jafaaf oo abaar oo dagaal iyo naar iyo huluc ka socday isku bedelay jilaal marka Soomaalidii yaani saameyn ay ku yeelatay maadaama ay ku nool yihiin
toddoba qof oo Soomaali inay ku geeriyootay xataa aniga waan maqlay sanadkii hore ee 2012 bilowgeedii waxaa jira qolooyin qanaas la dhaho oo mataqaanaa shooters dadka ay togtaan xaafad tal yira ayuu degan ayaa mataqaanaa ay ka dhacday marka dhibaatada laga hadlaayo horta Soomaalida mid si gooni loo targeeraynayo ma aha laakiin bulshada ay isku dhex jirto mudaaharad waxa dhacay sometimes in Soomaaliya la soo qabto oo xabsi la geeyo oo liida mudaaharadka ay ku jirteen marka ayagoo mataqaanaa dhahayo isheeg wax murtasaqa lahay ay jiraan oo dadkan waa la soo adeegsadaa mataqaanaa isheeg si indirect ay ay laftirkooda ugu qayb qaataan ayagoo dhahayo ay mataqaanaa alla wixii leeyahay Soomaalida laakiin inta badan oo boqolkiiba 99 yani aad looma targeeray Soomaalida hadda laakiin marka eegto markii dagaalka uu adkaaday Soomaalida inta badan way ka baxday qaar ayaa tahriib oo Turkiga galay qaar ayaa mataqaanaa wadamada Yurub ka yimid oo mataqaanaa meesha u yimaadeen in carruurtooda kala baxaan ku dhaqan celiyaan dib ay u laabteen iyo qaar ayaa jira mataqaanaa ayagana wax ka baran jiray oo anigoo kale to dib soo laabtay marka waxa dareemaysaa marka meesha markii dagaal oo ka dhaco Soomaalida annaga waxaan nahay sheeg reer guuro ayaa nahay wadankeena dagaal ka dhacay waan ka cararnay meel kale dagaal lagu qabsana waan ka sii cararaynaa marka Soomaalida wixii raadinaysaa on meesha roob ka doo ay ayaysaa maadaama reer guuraana watahay wali waxa daawanaysan khiyaarta daawanaysa telefishinka Somsat barnaamijkana waa codka dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaan idinkaga soo tabinina Cabdiraxmaan Cabdinaasir Soomaaliya safaarad baa hadda laga furay dalka Koonfur Afrika safaaradaasi maxaa isbedel ah ayay keentay horta anigu dalka waxaan ka imi ayadoo safaaraddu ololaheeda ay jirto safiirkina waraaqihiisa laga aqbalay safiirku waa nin gaar ah saaxiibanahay dadka Soomaaliyeed dalkaas ku nool baahi weyn bay u qabaan runtii inay arkaan dad matalaya ayaga oo xuquuqdooda u doodaya safiirka shaqo badan buu qabtay intii oo safaaradda la furin waxa uu suurtageliyay inuu dadka Soomaaliyeed la kulmo dhamaantood in uu ogaado baahida ay qabaan dalka Koonfur Afrika sagaalkiisa gobol dhan oo ku safray waxaan isleenahay marka dadaal badan buu galay safiirka iyo dawladdiisaba hadda waxa la furay safaaradii marka waxa ay diiwaan gelinaysaa bilaabaysaa inay bilowdo diiwaan gelinta dadka Soomaaliyeed deegaanada ay degan yihiin ganacsigooda waxa uu inta ganacsi ay Soomaalidu leedahay waxa ay ka kooban yahay dadka wax baranaya dadka amal la'aanta ah dadka shaqeeyo oo dawladda u shaqeeyo Koonfur Afrika marka waqti bay qaadan doontaa arrintaasi oo dhan laakiin wax qabadka muuqda ee hadda la qabanayo waxa ay tahay in dadka Soomaaliyeed doonayo inay dalkii dib ugu soo noqdaan maxaa yeelay magaalada Muqdisho caasimada dalkan maanta joognaa wadogtahay nabadda ay maanta gaartay Soomaaliya horumarka maanta maraysa Soomaaliya waa dareemi kartaa marka dadkii waa dad qurba joog oo dhibayso ku noolaashaha qurbaha marka dalkii dib ugu soo noqonay waxa adkaatay Koonfur Afrika inay dawladdii ay joojiso baasaboorka Soomaaliya lagu safrayay arrinta madaxweynaha waa ka hadlay waana diray safiir in howlahaasi la xoojiyo wasaaradda arrimaha dibadda uu la kulmay safiirka jazallahu khair runtii aad buu u dadaalay waxa kale oo uu la kulmay wasaaradda arrimaha gudaha oo dadka Soomaalida qaabilo dadaalkii waa uu sira daraad maraan la hadlay magaalada Johannesburg waxa la sheegay in falaadyadii ay bilowdeen dadka Soomaalida ahay maanta waa rajaynaa dad inay soo degaan maalmaha ku xigta Soomaaliya Koonfur Afrika ma lagu arki doonaa magaalada waa tahay su'aal kale rabo inaan ku weydiiyo dhanka garsoorka dalka Koonfur Afrika dadka u dhashay dalkaas ee Koonfur Afrikaanka ah iyo dadka Soomaalida ah ma ay xasha ayaa jirto oo looga eexda Soomaalida mise si xaq ah ay u dhacdaan dhanka garsoorka horta dalka Koonfur Afrika saan ku sheegay waa inta uu ka kooban yahay dalada la wada harsadana waa constitution-ka ama sharciga runtii waxa u dhaxeeya qof walba oo Koonfur Afrika ku nool cid walba oo Koonfur Afrika ku nool waxay hoos harsataa geedka sharcigu qofna kama weynaan karo qofka South Africaanka iyo qofka Soomaaliya qofka Nigerianka iyo qofka Ghanaiska way u siman yihiin sharciga Koonfur Afrika marka laga reebo qodobo dhigayo in shakhsiyaadka doonaya in ay waxyaalaha wad dareemi kartaa constitution markii la qorayo qodobo ayaa harsan oo la yiraahdaa haddii ay dhacdo maxaa laga eegaya maxaa laga suubin karaa qodobadaas waa jiraan in dadka ajnabiga loo isticmaalo for example ama misaal ahaan marka loo soo qaato qof derbi ka boodayo oo doonaya in uu dal kale u tallaabo oo sharci darro ah way dhacaysaa in qodobadaas ay dhacaan qodobo loo fiiriyo laakiin ma jirto sharci dhigayo in dadka ajnabigana si gaar ah constitution-ka ama nidaamka dawladnimo uu tilmaamo ama qofka Koonfur Afrikaanka waa la wada hoos harsaa geedkaas waana geed aan isleeyahay harsinadiisa waxay keentay in 70,000 oo qaxooti oo Soomaaliya ay ku noolaadaan Koonfur Afrika waa tahay isla su'aashaasi Maxamed Amiin dalkan Syria inta aysan dhibaatooyinka ka dhicin
soomaalida garsoorka ma waxaa jirtay wax musuqmaasuqa ama qofkii sharci darro lagu qabtay sida xaqa oo dalku u yaalo dastuurkiisa ayaa la mari jiray marka laga hadlaayo mataqaanaa Soomaaliya Soomaalida aan dhahay ku sugan dalka Suuriya waxaa loo ictibaaraa inay joogaan wadankoodii labaad marka Ingiriiska beerbarka waxa uu leeyahay ahlan wa sahlan fi baladika athani kusoo dhaw wadankaadii labaad marka Soomaalida waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin qoomiyad Carabiya wax laayo ama ay sheeg dad ka soo jeeda Carabta asal ahaan ee loo tixgeliyaa marka marka Syrianka waa wax qoomiyad Carabi la wax aad u weyn waaye Soomaalida aad loo ixtiraamaa waxaa dhacayso qof Soomaaliyeed oo wadanka joogo 15 sano ama 10 sano ama 20 sano meestii iqaamo مع ذلك وضنك قديس أيوة كسفراء دلحيس وهذا حلب وهذا لاذقية وهذا حمص مالك فربنا هذا أسوق كسر على باسبور كصومالي أو تمسنا كور وكسر قلي وأنا وح متغنى إقامة يسكت سنين مركز هذا شيء أزقري أو كسر قبت مثلا أما شيل بقارة قشي أما وحبال يعني وحيابا ugu badan Soomaaliya lagu qabsado xikmad tahriibka tahriib ayaa mid lagu qabtaa qofka bini'aadamka oo Soomaaliga waa qof nolol raadinayo halkaan oo ka baxaya lacag qaraj gareynaya Syria u tagaya xuduud wuxuu marayaa isag Syria iyo urixis Turkiga laba qabiil dhexdooda ayuu marayaa oo ah Arab iyo Turkish ayuu marayaa oo baadiya degan sometimes waa la soo qabtaa marka la soo qabto waxa la geeyaa xabsi laba xabsi ay maraan markaas maxkamadda la geeyaa maxkamadda marka la geeyo qofka lagu soo qabto dambigaas حدود من حدود دافعي وحبسي 5 سنة إلا 3 سنة مركا لو في ردك أجنبي حدود متغير أي شيء جود باي وضن كذا مركا لو في ما دام صومالي هي قومية عربية وياها وحلي يقف كما صومالي محاكو جينا تاريبته نور ما أذكر سنة يوروبا والسعودية أوكي لما حكموا waxaa la geeyay meel baa musal laho oo dadka oo tarxiilka transitka ayaa la geeyaa tiid safaarada lagu yeeray ijaalida waxa leeyahay qof Soomaaliyeed ama habeen Soomaaliyeed heena oo ma taqaanay shay xuduud laga soo qabtay isla markii waa loo fiyaa waan gartay Cabdi Naasir dhanka waxbarashada Koonfur Afrika markaan fiirino Soomaalida ka tagta Soomaaliya ama ka yimaadaan wadamo kale marka ay Koonfur Afrika gaaraan ma ganacsi oo kaliya ay sameeyaan mise waxa jira dhalinyaro kale Soomaali ah oo iyagana wax ka barta dalkaas sharmarku su'aashaasi waa su'aal muhiim ah runtii ma jirin dalka Koonfur Afrika sanadihii hore in dadka Soomaaliyeed ay noqdaan dad waxbarasho u diyaar ah horena uu kugu sheego dadka Soomaaliyeed kama inay soo qayb galin dawladda dhexe waxbarashadoodii waa la soo diday oo dalka Koonfur Afrika maangaliyo baa loo imaaday ma jirin wax waxbarasho laakiin sanadihii dambe waxa bilaabatay dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaas waxbarasho bilaabay jaamacadaha dawaa la jooga dad takharujo oo jaamacadaha ka baxay baa jiro oo hadda wax bartay oo dhameystirtay waxbaradooda 4 sano ugu dambeysay wax ka bartay hadda jaamacadda Johannesburg University ama Cape Town jaamacadda ku taalo UWC waxa arday badan oo Soomaaliyeed wax ka barato oo rag iyo dumar iskugu jiro oo maadooyin kala gaar ah barbarto runtii waxaan is leeyahayna waxa ka soo bixi doono dad aan u arki kara aniga inay yihiin iftiinka Soomaaliya u soo dhow kasako Soomaalida South Africa degan Soomaaliya magaalada Muqdisho jaamacadaha Koonfur Afrika inta laga bartaa dadka correspondent banaanka wax ka bartaan maalooyinka boqday school meeshana waxa la sheegay in ka badan 25 qof oo Soomaaliya Koonfur Muqdisho joogtay in wax ka bartaan jaamacadaha Koonfur Afrika taa marka waxaan isleeyahay waa albaab u furan dhalinyarada Soomaaliyeed ku nool dalka inay wax ka baran karaan jaamacadaha horumaray sida ku yaala dalka Koonfur Afrika waa tahay maxamed amiin isla dhankii waxbarashada inta dagaalkan sokay uusan ka bilaabin dalka Syria ka waran Soomaalida wax ka baran jirtay Soomaaliya arday Soomaaliyeed ee ku sugan halkaas Syria markii la yiraahdo sanadadii ugu dambeeyay ee 2010ka iyo 9ka ka hor Rabiul Arabi Tawraadka ka hor waxa lagu qiyaasay inay 200 arday يعني ترى أد أبورن معها لواس بقول أرضي أيه وحي مركز سوق جيران أرضي متقانا هذا خلين جبر بي أرضي متقانا إيش كواد يو هير كواد هير كده حد هير كود من سوق جرو مركز وحبرسنا مركز حلوة إلى سفارة مش كتالو وسفارة أيه متقانا أرضي أيه قيبسة تسهيلات دير أيه للديبا سيرفيس قارنا متقانا إيش أرضي الصومالية أيه وحكبرته ذلك جودها وذلك خلين جبي جودها وضن سوريا أينا من حين أي هلان وحقود دقي حزب البعث وحلا يجرو ودنك حكومي يجري كاس أيام تقنع شخصية مركب وحبرشدي وحان آدو وحما سوريا ونظام آدو أضاق واي
ardayda Soomaalida ay waxbarashada ku jiraan ayaa laga yaabaa waxa u saamaxay duruuf dhaqaale ay soo wajahayso waxbarashada ayaa ku adkaanayso mataqaana ay sheeg yani dhibaato farban ay ku wajahayso waxa laga yaabaa qofka inuu taxamul waayo ama wadan kale uu bedesho ama iska tahriibiyo oo galo marka laakiin waxbarashada Syria yani aad ay u fiicneed arday Suuriyaana la fariisanaysa mataqaana khibrad farbadan is dhaafsanaysiin mood amali waxa la jiro oo baraatig aad ku baranaysid laakiin waa nidaam oo system ay dugsiga waxbarashada aad u adag tahay oo ma aha in si sahlan lagu qalin jibinayo maxaa war ah ayaa ka haysa hadeertan Syria dagaal ka socda oo 2011 bilowday 200 arday ee qarkood ay sheegtay inay qalin jibin rabeen hadda dagaaladan saameyn ma ku yeesheen oo dalkii ay joogeen ma ka carareen Soomaaliya ma dib ugu soo laabteen waxbarashadooda sama u socota aad ay saameyn ugu yeelatay haddii aan tusaale soo qaato jaamacadda Xalab rag fara badan oo Soomaali ay dhiganayeen dad fara badan ka aqoon saaxiib aan nahay ay jiray oo xataa sanadihii ugu dambeeyay marayeen يعني جامعة حلب وأكتين والبمجريي قصفي جاري أرضي ثورات كيكود بيرن أو متقن عربته سوريان كهاي وحد عمر كديبات فربنا داعي إني وحبرسي استكتو تركيا أي جلنا سيدا متقن عن إن بدن عن كم غلاي ضد سحب ذلك كديجنا وحبرسة قار تركيا آذين قار وسامح إني مقدمات كله أما آذان ماليزيا أم باكستان آذان صورة كشيء قار أي وطن بدي وصول لابتي قار أي يوروب سي جلو سي تهريبي marka dhibaatada way saameysay waxbarashada way saameysay nolosha caadiga ah way saameysay waa tahay daawadayaal wali waxaad naga daawanaysaan telefishinka caalamiga Somsat xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaan idinkaga soo tabinaynaa barnaamijkan codka dhalinyarada qaybihiisa dambana waan marinaa Cabdi Naasir Soomaalida waa lagu dilaa Koonfur Afrika dhibaatooyin badanna waa loogu geystaa sida noo sheegtana Soomaalida isku meel ma wada joogtay waxa ay ka joogan gobolada kala duwan oo 9 gobol ee dalka Koonfur Afrika uu ka kooban yahay maxaa sidee warka isku gaarsiisan ma waxa jirta warbaahin afka Soomaaliga ku hadasha oo ka hirgashan dalka South Africa Sharmarko ma jirto horta warbaahin u gaar ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika ay ku hadasho balse warbaahinta Koonfur Afrika ayaa casri ah oo idaacadaha dalka ka wada jiro ama private oo si gaar ah loo leeyahay ama dawladda ay leedahay telefishinada si gaar ah loo leeyahay telefishinada dawladda ay leedahay intaba dadka Soomaaliga ay ku xiran yihiin balse marka uu dib dhaco waxaa jooga saxafiyiin Soomaaliyeed oo runtii aan uga mahad celinay shaqada ay ku hayaan Koonfur Afrika oo ah waqti badan ku dhumiyay in dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinkooda ay soo tabiyaan anagu magaalada Muqdisho laga soo sheegay magaalooyinka beledweyne laga soo wacana leeyahay qof ba Koonfur Afrika ku dhintay maxaad ka waraysaa taasi waxaan isleeyahay dadaal ay geliyeen saxafiyiinta Soomaaliyeed Koonfur Afrika weeye oo dadka Soomaaliyeed ogeysiiyay laakiin ma jirto idaacad gaar ah oo afka Soomaaliga ku hadasho waa la isku dayay dadaal badan dadka Soomaaliyeed waa ay subiyeen ganacsatada waa ay nasubiyeen dadka saxafiyiinta Soomaaliyeed rag iyo dumar isku jira Koonfur Afrika jooga in ay yeeshaan idaacad afka Soomaaliga ku hadasho magaalada Port Elizabeth ee gobolka Western Cape ay raadeen ayaa waxa laga asaasay idaacad ku hadasha afka Soomaaliga oo 30 daqiiqo ah runtii inay wali shaqeysan ma filayo oo waqtiyo badan baa inta badan la dhumiyay laakiin waa ay jirtaa fursado noocaas ah in laga helo idaacadaha muslimiinta ah ee FM-ka ee magaalooyinka ka jiro in laga helo 30 daqiiqo hal saac oo lagu tabiyo baahida dadka Soomaalida laakiin warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasho waxa ay ka jirtaa gudaha Koonfur Afrika kama jirtaa gudaha Soomaaliya ka jirta mar walba loo soo waa yahay adiga wariyaa tahay dhowr iyo 20 sano waxa ku nool dalka Koonfur Afrika maxaadan isugu dayn adiga iyo in akaashato wariyaal kale oo Soomaali ah oo warbaahinta dalkaas ka jirta aad ka codsataan in toddobaadkii mar ama maalintii mar barnaamij afka Soomaaliga ku baxo aad gaarsiisan Soomaalida oo aadna ku sheegtaan dhibaatooyinka loo geysto dalku waxa ku soo qaxay Afrika oo dhan ku soo qaxday iyo caalamka intiisa kale marka macna gaar ah keenay meesan qofka Soomaaliga uu noqdo shakhsi ka madax banaan ama ka muhiimsan dalka kale ajnabiga ee Koonfur Afrika ku nool waana hore u sheegay dadaal badan waa la galiyay aniga ka soo rag kale igu horeeyay rag iga dambeeyay waa ay galiyeen dadaalka laakiin ma jirto TV ogolaanayo ama haddii uu ogolaado adin si gaar ah ku siinay ayadoo ay joogto in ka badan oo qaxooti ah Nigerian baa jooga dalka Mozambiquean baa jooga Zimbabwean oo 3 jeer ku soo laamay tirada joogto oo dhibaatooyin ayaga loo geysto Soomaalida kaliya ma marka dadaal badan waa la wadaa ismalihi dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika waa ay yareeyeen dadaalka ku aadan barnaamijkaas الله نحرجنا سي صاحب قالي مهد أحمد علمي أيانو إذا عد كهذا شعب كصوماليجا كهير قلني دلك كونفر أفريقيا مقالة جوهانسبرغ وعيجرتي إذا عد مدير بأنا لسيء وخميس والبحثوا قال جرسد دقيقة هل ساعة تاسوي يستكمل كده دنبه لكن وحنسليه هذا دلك ولي ماشي وقصص على وأنا لو ودي دونا إلا لقى جاره دلك الصومالي إذا عدوا جار مويلان دونا ساس ليه
maxamed amiin isla qaybtii saxaafadda South Africa and Syria intaad ku sugnaadeen ma maqli jirtay marka laga reebay idaacadaha internationalka ee afka Soomaaliga ku hadla idaacad FM af Soomaaliga ku hadla oo Syria ka jiray ما absolutely ما جرين واحد إذا عدا أم واحد صحفينا أو منطقة نالكاس جوجا صابته هنا واحد هاي وطن سوريا ووطن أد واحد حرنا أيوها مركز القريب وإنفجار كان ثورات كذا عادي كور وطن كدولة الشيوعية أي حكومة هل حزب أي حكومة هل تلفزيون هل إذا عاد قرن كلي أيولها إذا عاد ما حبنا حتى ما وصل هين ويجرين أنا رفر بدن أو أسود تمين جرتي ورالك تي في عالمي يونيفرسال تي في يونيفرسال marka laga reebo ma jirin dad Soomaaliyeed oo ama idaacad furan karo ama mataqaana ay shay ku dhiiran karo wari ay madax banaan war sii timin karo marka qol oo inta mataqaana ay shay Soomaaliyeed waxyaabo ay ku jiraan iyo xafladaha marka la sameeynaayo iyo ayaa mataqaana qol inta lagu duubo ayaa universal yar u joog jira wakiil ayaa markaas sii gudbin jira maana ma jirin wax mataqaana ay shay idaacada ama madax banaan oo mataqaana ay shay gacan saaran la dawladda ma la sameyn karno qawaaniinta u degsan ayaa wuxuu ahaaba idaacad ka dheeriye idaacad qaranka iyo telefishinka ka dheeraan laga furi karin wadanka absolutely waatahay in dhankii waxa soo laabanayna tahriibayaasha Soomaalida ee Syria ka bixi jiray qofka markuu ka soo galo Syria oo garoonka ka soo deego oo isku day inuu u tallaabo xuduudda Turkiga oo la wadaago Syria xuduudii kale qofka marka lagu soo qabto maxaa caqabada ah oo la kulmi jiray runtii marka tahriibka aado waa runtii waa khatar fara badan ay leedahay Syria dadka ugu badan hadii Yurub joogan inta badan Syria iyo Turkiga ay mareen qofka markuu wadanka ka soo digo oo yimaado dalka Suuriya oo yimaado dad fara badan ayaa jira oo mataqaana barnaamijkaas ku shaqeysto oo ayaga dadka soo dhaweeyo oo soo abaabulo waaba connection shirkad hay'ad isku xiran waaye qaar ayaa halkan dadka soo abaabulo airport soo diro qaar kale Soomaaliyeed fiisooyin soo saar ayaa markaas ku xiran oo mataqaana ayagana sii wado qol geeyo ama hotel geeyo halkaas ayaa lagu sii hayaa halkaas ay dad Carab loo sii balamiya oo mataqaana waxay maraan qabayl Carabeed ay xuduud ay sii maraan ama Xalab ama Laadiqiya ama meel kale oo ama Idlib ama meelaha ay ka dhawaad xuduudaha Turkiga ay sii maraan isla markii halkaas la keeno waxa jooga dad kale oo Turkish ah isla markaasna ayana Carab ku hadlaan ayaa la sii wareegayo sidaas ay xuduud lagu sii marinay waa taas waa process lagu baxayo laakiin marka qatarta aan ka hadlayno qatarteeda aad ay u badan tahay gabdha ayaa jira oo meesha tahriibayo mar waxa arkaysa gabdha kaligood oo soconay arkaysa dadka Carabtaheedo ama dad Turkish oo wadaay dhibaatooyin fara badan kala kulmayaan gabar iska yar oo iska jilicsan waxa laga yaabaa jidka loo kufsado waxa laga yaabaa in la garaaco waxa laga yaabaa in mataqaan on hatta harad u dhimato waxa laga yaabaa lugu inay ka jabto marka hadii booliska ay gacanta ku dhigaan maxaa lagu sameeyaa booliska markay ku dhigaan waa watan ugu khatarta badan la waaye qofkii xuduud ayaa lagu soo qabtay xabsiye fara badan ayuu maraya isbuuc wuxuu maraya oo taxqiiq ayuu maraya jekin ayuu maraya waxa laga soo qabanaya xuduudda xabsi ay la keenaya oo xuduud ku yaal waa la soo waday magaalo kale la keenaya Dimashq la keenaya Dimashq ayaa dhowr xabsi isku maraya wala xaqiijinaya ka bacdi ayaa laga yaabaa safaaradda iyo jaaliyadda la soo wargeliyo oo sidaas mataqaana loo soo tarxiilo ana qisadii igu yaabkooda ayaa waxay ahayd gabar Soomaaliyeed oo tahriibtay ayaa mataqaana anigu isgaranaynay markay baxday oo ay gaartay xuduudii ninka Carabka ayaa waxa dhaanay midaaftid markaas waxay ku tiri waay aan kugu dhaafin shaqada naga dhaxayso aniga waa tahriibay adna lacag soo qaatay ma jirtay tiri nasiib wanaag nambarkayga soo wacday aniga was garanaynay waxay dhaaday nin Carab ay ugu dhagan waxaan sameynaa ma garanay laba gabarana maxaan sameynaa markaas ku dhaca Carabki aan la hadlay waxaan ku dhahay gabadhaas hadii amaan geliysid waxa ogaataa 10 sano xabsi inaa mutaysanaysid amni siyaasi waxa la jiro markay aad ugu baqaan oo marka qofku uu qabtabo oo aan laga fakanaynin waxaan ku dhahay meesha joogto waa garanaya waxaan ugu balan lahaa amni siyaasi meesha joogto inaan ku keen xalab aan joogo aniga xalab waa magaalada ka sii baxay kiis tahriibaan badana hadda ku imaanaa nus saac igu maqaanayso anaa ku keenay amni siyaasi iyo shurdaan ku keenay markaas oo dhamay waa la kaftamay gabar qurxan waaye way cajibisay marka qisaas waa gabdhaha Soomaaliyeed marka waxa uu digay inay tahriibaan kaligood asna inay tahriibaan uu digayaaba hadii tahriibaan waa dad ay wataan Soomaaliyeed tahriib oo dhaafay soo naqanay marka tahriibka qatartiisa ay Soomaaliyeed hawadaan ugu sheegana maanta in tahriibka ay iska daayaan saxaraha iyo ay marayaan iyo mataqaana ay shay meel kasta ay marayaan iska daayaan wadanka waxbarashada taalo jaanisi fara badan ay leeyihiin kala xoogi wadanka Soomaaliya ku tashanaya marka tahriibka qatarti oo leeyahay barnaamij gooni ay u baahan yahay ma waxaan daqiiqada aan ku soo koobi karno waa tahay Cabdiraasir Naar Magale dalka Koonfur Afrika Soomaalida markay tagaan ma isku dayeen inay ka baxaan oo meel kale ay aadaan
sidaan hore saaxiibkay u sheegay dadku Soomaalidu waa reer guuraaguna waxa ay dabeecad u leeyihiin in meesha uu daaqa u badan yahay ay xoolaha u rataan in annagu waxaynu nahay dad reer guuraa waxa dalkiisa nin Australia degan oo kule dalka Soomaaliya dalka Ingiriiska lagu sheegay shaqo ka badan shaqadan maanta aan ku hayo Australia markuu soo guuriyo Ingiriis soo degay mid Mareykan degan baa waxa uu ku leeyahay New Zealand baa shaqo aad u culus lagu sheegay markuu waan ka guuriyo Mareykanka kan South Africa waa la mid oo waxa uu socdaal u yahay dalalka ka baxsan Koonfur Afrika sida Ingiriiska Mareykanka iyo Sweden iyo marka aad baa runtii loo baxaa dhalinyaradu waa ay baxaan waxa ay ku baxaan sifooyin badan waxa ay ku baxaan shakhsiga beecsamo oo hela gabar uu markaas calaf la yeesho oo iyadu geyso dalka uu markaas ay ku nooleed kaasi waxaan raanaa waa uu suuq galay waa uu beec tagay rag iyo dumarba labadaba waxa kale inta badan dalka Soomaalida ay ku baxaan waxa la yiraahdo bugta sharci qof kale uu leeyahay ku baxa marka qaarkood waxa baxdo boqolaal qof baxda sanadka December-ka ama sanadka akhirkiisa kala guurka boqolaal qof Soomaaliya baxda Brazil baa la aadaa Mareykanka laga sii aadaa marka waxaynu nahay dad transit ku ah Koonfur Afrika una sii jeeda laakiin hadda sheekadu way ka duwan tahay sidii dadka Soomaaliyeed waxay u soo jeedaan dalkii hooyo waa soo wada noqonaya guux baa yeeraya dalkii nabad buu noqday guux baa yeeraya dawlad baa la helay guux baa waxa uu yeeraya in magaalada Muqdisho caasimadda dalka ahna hooyadii Soomaaliya nal u ka ifayo taas waxay keenaysaa marka dadkii oo dhan runtii saxafiyiintan ooga madcelinayna marka muuqaalka quruxda badan ay soo tabiyaan waxa uu keenayaa in socdaalkaada uu in dib loogu soo laabto idinka markaa joogtaa Koonfur Afrika ma jirtaa meelaha isugu imaataan oo aa ku wada sheekaysataan Soomaalida haddaad tihiin waa ay weeyihiin sida haddaan mithaal usoo qaato afar magaalada Rustenburg ee gobolka North West magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape magaalada Cape Town ee Western Cape magaalada Johannesburg ee gobolka Gauteng tirooyin noocaas dadka Soomaalidu way u degan yihiin goobo lagu sheekaystana waa ay leeyihiin goobo lagu fadhi ku dirana waa ay leeyihiin goobo ragga dhalinyarada gaarka ee kubadda xiiseeyo ee ku sheekaystaan baa jiro ragga siyaasiyiinta goobo ay ku sheekaystaan baa jirto ragga mustaqbalka Soomaaliya noqonayana meel ay ku sheekaystaan waa ay jiraan waana magaalo runtii u baahan inaan laga sheekeyno in la arko u baahan magaalada Cape Town qofka tago waa magaalo aan runtii Yurub waxba ka bariyeen magaalada Johannesburg waa la mid magaalada Port Elizabeth waa magaalo aan isleeyahay waa magaalo aad u qurux badan magaalo xeebeed ah loo daawasho tago watahay waxaad daawanaysaa telefishinka Somsat xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaan waxaan idinkaga soo tabinaynaa barnaamijkan codka dhalinyarada oo toddobaadkiiba laba maalmood aad daawataan su'aasha waxaan ku celinayaa Cabdi Naasir xabsiyada markii laga baxaayo Soomaalida ay ka baxaan Soomaaliya intooda badan waxa lagu xiraa Kenya Tanzania iyo Mozambique hadda tusaale kale Soomaali badan baa waxay ku jiraan xabsiyada wax khibrad ah dadka ku daawanaya ma u sheegi kartaa oo dadka xabsiyada ku jira si looga badbaadiyo sharmaarku sanadkii 2003 ayaa waxaan ka baxay magaalada Johannesburg oo ahayd xaruntii aan in badan ku noolaa anigoo markaasi u safraya dalka Kenya way ii suurtagal weysay magaalada waxaan tagay Dar es Salaam ee dalka Tanzania waxaan ahaa nin sharci kula Koonfur Afrika muddo dheer ku noolaa Koonfur Afrika garanayo khabiirna u leh dalalkaasi inta badan aan ku noolaa wixii ay dadka Soomaalida iga sheekeyn jireen marka as saxafi waxaan go'aansaday in aan soo ogaado xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta meeshaas waxaan ka soo ambabaxnay magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania waxaana lagu sheekeeyay in la geyn doono dalka Zambia amaba magaalada Maputo ee dalka Mozambique caasimadooda waxaana laga qaatay lacago markaas ay ku sheegeen in ay suurtagelin karto in dhabahaasi naloo suurtageliyo inaan marro amba baxayaga wuxuu ahaa amba bax raaxo badan dhawr qurux badan baana lagu soo qaaday markii aan xuduud u soo dhownahay ayaa waxaana lagu amray inaan gallo container waxa lagu keenay alaabaha dibadaha looga keeno tir ahaan waxaan ahayn 42 qof oo Soomaaliya 85 qof oo Ethiopian waan ugu tagnay meeshii containerkii baan la wada galiyay ma jirin daryeel gaar ah ma jirin meel laga neefsado ma jirin meel aad markaas dadka u cinsadaan 42 Soomaalida mararka oo kaliya mise waa rag iyo dumar dumarku ay ku jireen inkastoo tira yaraayeen markaas way ku jireen waxaan ugu jirtay carruur yar baan ugu jiray oo markaas aan isleeyahay qaarkood 6 bilood bay jiraan waxaan nalagu qabtay dalka Tanzania oo isla xuduudi ah waana la xirxiray waana la dirdiray waana loo caga jugleeyay dadkii waxa loo dhaqmay si aan ka baxsan bini'aadanimada waxyaalaha la yaabo waxa kamid ah cabaadka dhalinyarada la garaacayo oo laga weydiinayo lacag anigu marka lacag $100 baan watay jeebkan ku soo saar waxaan ku lacagtaan baan lacag dhanka watay hal iga qalay laakiin waxa igu cajaa'ib badan mid kamid ah saaxiibada ila socday lacagta meeshaas buu gashtay marka nala qabtay nala waayo lacagna laga waayay ee aan u soo gudubnay dhinaca Mozambique iyo yiri warayaha wax la cuno
lacagtoona laga dhacay $100 buu soo saar xagee ka saartay meesha ka saar waxyaalaha igu cajiib garsay ka mid tahay qofka Soomaaliga u diyaar gareysan yahay wax walba oo dhaco xaqiiqdii gabdhaha waxaad arkaysaa surwaal jeans ay wada qabaan funaanaday qabaan waa diyaar qofku wuxuu diyaar u yahay wax walba inay dhici karaan Mozambique baan kaga haray way socon way si sheekada ahayd inaan sii tahriib sababtoo nafteedii baa waxay gashay khalkhal marka horena waxa uu timid inaa xog baar xogtu waxay ku filaatay labadii maalmood ee containerka lagu xiray kuwa ku ekay sababtoo oo sii wada laakiin dhibaatooyin aad culus baa runtii dadka okay kuwa hadda ku jira maxaabiista kale xabsiyada ay ku jiro maxaabiista ah sidee loo badbaadin karaa isleedahay bal haddii khibradaada dadka daawanaya ay raacaan فرنت waxaan u dirayaa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha sare ee dalka dadka aad madaxda u tihiin ma joogaan oo kaliya Soomaaliya waxa ay joogaan dalal badan waxa ay ku ribaataysan yihiin dalal ka baxsan Soomaaliya anagoo og in Soomaaliya dhibaato ka jirto haddana dalalka kale shay dhibaatooyinka jiro waa in si gaar ah loo eega dadaal badan buu madaxweynaha iyo dawladdiisa ay gelisay in xubno loo diro safaaradaha matala iyo waliba xildhibaano u tagay oo soo daayay meel qaarkood ku soo daayay dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta dalka Mozambique waxaa ku dhibaataysan boqolaal Soomaali waxaan aaminsanahay in ay jiraan ilaa iyo hadda dad Soomaali ah oo la adoonsado oo beeraha lagu fasho oo ay xabsiyada ka sakow kuwa Mozambikiana oo dadka sixreen ay beeraha ku fashaan waxaan aniga u soo taagnaa oo andayga ku soo arkay gabar Soomaaliyeed oo u xiran nin Cornelio Mozambikiana oo inta geed ku xiray silib geed ku xirto markii uu rabana soo xariisto gudaha soo gasho markii uu rabana gudaha banaan ku soo xiro taas waan ku guuleystay aniga madna matelin oo Soomaalinimo iga tahay baan xabsiga ka soo daaynay kuwaas oo badanaa jiro waxaan ka codsanaa marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Saacid iyo professorka xildhibaanka inta bay dadaal u galaan in juhdiga ay ku jiraan ayna noqon kaliya Soomaaliya juhdiga banaankana la xoojiyaan qabaaniga watahay maxamed dhanka Syria aan soo laaban marka ka bilaaban waxa la dhihi jiray Soomaalida markay garoonka Syria ka degaan dhibaatooyin badan baa garoonka gudihiisa loogu geystaa oo hataa waa lagu furtaa hadda sida Cabdiraxmaan Naasir uu sheegay ayagana lacagaha meelahaas ay geliyaan arintaas bal waa xog ma kaysa waa sax laakiin qof markuu airport soo degayo waa qof hore loo furtay ما الحدث اللي فرنايو بروسيس أي قف كان صومرايا ويد على مرة قف سودان كيمد أما قف كيمد سعودي عربي أو أسيس فرنايو ولا لوش ديبايو أما أزجرس ده كورنيلا أما تقى عقيد بحد هانو متك هيس إميجريشن كان كهوسيو مساعد هانو كله إن العقل سيو سي وضعك وفوذين سوق جلان بيجي لافوذ ويد على هذه قصوين كي تاريخ أتكلم كرنت وضع كله إن اهتمام ودنكين ودنكين أو حقبتان أو حبرتان waan baraari barwaaqan garnaa kula talnaa waa mahadsan tahay guud ahaan barnaamijkii codka dhalinyarada oo aad ka daawaneyseen telefishinka caalamiga Somsat xaruntiisa magaalada Muqdisho waa naga inta barnaamijka waxa igala qayb qaatay oo aan u mahad celinayaa Maxamed Amiin Umar Ali oo loo yaqaano la diqiya oo muddo wax ka baranayay dalka Syria Maxamed Amiin mahadsanid waxa kale barnaamijka igala qayb qaatay dhankayga bidix fadhiya Cabdinaasir Sheekh Abdul Kareem oo loo yaqaano naar magale oo isagana saxafi Soomaaliyeed 22 sano ku noolaa dalka Koonfur Afrika arimaha Koonfur Afrika ee Soomaalidana u dhoonduleelay Cabdinaasir mahadsanid barnaamijka waxa ii duubayay oo dhanka kaamirada ka hagay Cabdiraxmaan Macalin Cabdiraxmaan Dheere anigoo Sharmaaka Abu Karamiinna waan idin soo saaray waan idin la socodsiinayay intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmeena khiyaarta Somsad naga daawanaysa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh